waxaa qadka taleefonka inoogu jira maxamed abuukar nuur oo runtii ah qabiir soomaaliyeed ee ku takhasusay aviationka bal marka hore aan soo dhaweeya inta aanan barnaamijkeeni u gudagelin bal maxamed galab wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu mudan ali marweyn iyo dhammaan dadka soomaaliya meel kastay joogaan sidaas kaleeto idaacadda sharafta leh maanta aan la wadaagayo informationka aviationka dhammaan waa isoo dhaweynayaa. maasha allah maxamed waa ku soo dhaweyna annagana ummadda soomaaliyed ku dhegaysanaysana aad iyo aad ayay kuu dhegaysanaysaa oo ay kuu xiiseynayaan marka waxaan doonaynaa inaad nagala qayb qaadato barnaamijkan ama aad sharaxaad guud aad naga siiso marka hore waxa la yidhaahda aviation iyo waxa uu yahay aviation bal marka hore inoo sharax inta aanan barnaamijkeena aanan u gudagelin. aviationka sidiisaba waa adeeg dawladeed ee shacab ee dal uu leeyahay kaasoo ah mid adduunyada dhan ay wadaagto qaynuunkiisa iyo nidaamkiisa kaasoo isku xiro dhammaan adeegyada duulimaad ee caalami ee adduunyada ka dhexeeya. marka aviationku waa adeegaas public serviceka ee caalamiga ah ee adduunyadu ay hadda dalkii laga fulinayo adeegaasayto ay u wakiilato ay u aaminto ay kuna shaqayso laga doonayo. marka aviationku waa adeegaas aad iyo aad muhiima taabanayana dhammaan adeegyada guud ee wadan uu leeyahay ha ahaato ammaankiisa ha ahaato dhaqaalihiisa ha ahaato nabadgelyadiisa wax kasta oo ku saabsan macnaha wadankaas uu leeyahay waa adeeg la falgala oo shaqadiisuna aad ay u ballaaran tahay hadday ahaan lahayd ciidanka cirka hadday ahaan lahayd badda qaybta mariniska hadday ahaan lahayd xagga dhaqaalaha qayb kastaba la falgala. marka adeega aviationku waa adeeg baahsan ee dal leeyahay ee dhaqaalana ka abuuro ahna sovereigntyga wadankaas uu leeyahay qayb kamida ee wadankaasito inuu ilaashado guud ahaana ay macnaha ay waajib ku tahay adeeg ahaana adduunyada uga fadhido inuu u qabto adeegaas caalami ee adduunyada ka wada sugayso. waa gartay runtii si weyn ayaad u qeexday laakiin waxaan ku weydiinayaa bal aviationka ama dal waxa laga doonayo aviationkiisa inuu yeesho ama laga rabo internationally bal maxay tahay? waa su-aal aada u wanaagsan. aviationka sidiisaba waxuu u kala baxaa laba qaybood oo aada u ballaaran. qaybna waa regulationka qaybna waa industryga aviation uu leeyahay. marka aviationku qaybta regulationka waa qaybta qaabaysa dhammaan qaybaha service ee aviationka wadankaasi uu leeyahay waa qaybta qaabaysa. marka qaybaha marka industryga waxaa lagu soo koobaa 6 qaybood. ay ugu horeyso aerodromiska ama airportiga oo ah saldhigga ama hooyada aviation ee dal leeyahay ee dawladu leedahay. waxaa ku xiga airlineka ama aircraftiga waxaa loo yaqaano ee dalkaasi uu leeyahay. waxaa ku xiga air navigationka adeega ah ee dalkaasi uu bixiyo. trainingka iskuulaadka lagu diyaariyo dhammaan wax alla wixii aviation la halmaala ama hagayaal injineero farsamo yaqaano bilodo wax alla wixii la xiriiro lagu diyaariyo. maintenanceka ama hangariska lagu diyaariyo diyaaradaha iyo ama lagu jeegareeyo ama lagu habeeyo iyo qaybta productionka la yidhaahda ama organizationka productionka diyaaradaha soo saaro. intaas ayaa u kala baxdaa industryga. marka intaas marka uu leeyahay waxaa qaabeeya oo wajiyeeya oo suufiyo marka waa regulationka lagu maamul lahaa adeegaas ayaa marka qaybta kaleeto waxda kaleeto ayadana ay noqonaysaa regulatoryga ayay macnaa u qaadaysaa adeega noocaas. marka aviationku waa adeeg baahsan oo aada iyo aada u fidsan oo intaasoo qayb daboolo aviation uu leeyahay industrygaas ama airline leh ama aerodromis leh ama air navigation leh ama maintenanceka diyaaradaha leh ama barbashanka diyaaradaha leh iyo shuruucda lagu dhaqi lahaa oo daba socoto. waa gartay maxamed runtii waxaan la soconnaa soomaaliya inuu dagaalo sokeeye ay runtii ku habsadeen 1991
Somalia Aviation iyo nidaam iyo dowlad iyo diyaarado Somalia Airlines la yiraahdo ayay lahaan jirtay dalkii markuu uu burburay dadkii waa ay qaxeen ummadda Soomaaliyeed wixii qaxi kara waa ay qaxeen marka waxaan la soconaa in aviationkii Soomaaliyeedna wixii waxa waaye qaxi kara ay qaxeen laftirkoodii sidii doonaan baa ku qaxaan qaybtii gudaha joogtana inay burburtay marka bal aviationka Soomaaliya dhibaatooyinka ama caqabadaha hadda haysta maxay tahay maadaama runtii dalkii dib u soo kabanayo aviationka Soomaaliya sidoo u soo kabanaya asagana aviationkii qaxay ee runtii ka howlgalay dalka Kenya Nairobi xaaladiisii guud maxaa nagala qaybsanaysaa aviationka burburkii ku dhacay bal wax yar oo kooban oo information bal ma naga siin kartaa waa su'aal aad u habboon balse su-aashaas intaana ka jawaabin waxaa habboon taariikhda aviationka oo horta kooban asalkeeda siday ku bilaabatay iyo qaabkii u kala fidday iyo waxeeda inaan soo kooba iyo horta aan ku dadaalayaa go ahead si aan brief yar macnasaan u bixiyo macnaha tusaaleyn yar aviationka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qaranka Soomaaliyeed la urtay ayuu horta qayb ka mid yahay waayo markuu dowladda ay qaadanayso dowladnimo waxay qaadataa calankeeda waxay qaadataa lacagteeda waxay qaadataa maxaa la sheeg dhulkeeda sovereignty-ga waxay qaadataa macnaha waxa la yiraahdo sheeg frequency-ga ama la telefoonka ama la maxaa la sheeg meteorology-ga ama la maxaa la codes kale aviation-kana waxay ka mid yihiin qaybahaas oo markiga diyaaradaha la siinayo 6 Oscar oo kaleeto waxay yimaadeen xilligaas ama aviationka Soomaaliya markaas ayaa magaca la siiyey oo loo bixiyay Somali Airspace marka xilligaas ayuu urtay marka anagu 10 sano ugu horeysay aviationkeena waxaa gacanta ku hayay dowladda markaas aan ka madax banaanay ee jirtay xilligaas ee Talyaaniga ahayd iyada ayaa kornaysay xilliga marka dowladda bilowgeeda ahayd waxaa la isugu hayay aviationka uu lama taan ahaa wasaaradda boostaha iyo isgaarsiinta iyo aviationka isku hayaan halkaasi ku dhismaayeen xilliga kacaanka marka la yimaaday ayaa aviationka waxaa ku timaaday burburka ugu horreeyay 1972 horta aviationka hadda ma burburay macnaha xilligii dowladda burburaysa lama burburin wuxuu la burburay xilligaas 72 markii asaga sidii 70 laga ama gooni loo istaajina la kala burburiyey ee loo kala qaaday qaybihiisa ugu muhiimsan hadda aan soo sheegayo aan ka sheekeynayo ee ahaa airport-kii iyo maintenance-kii iyo waxa la yiraahdo maxaa la dhahaa ground service-kii lagu wareejiyay Somali Airlines qaybta air navigation oo kaliya inta la qaaday wasaaradda gaadiidka la hoosgeeyay taasoo wasaaradda gaadiidka iyo civil aviation-ku ayaan wax badan aysan wadaagin marka burburku wuxuu ku bilowday marka xilligaas 72 waayo wasaaradda gaadiidka marka la hoosgeeyay aviation-ku wuxuu noqday department-kaasayto marka ma uusan ka fakerin ahamiyadda aviation ee dal uu leeyahay xilligaas asaga ah aviationka waddanku wuxuu ahaa hadiiba hay-ad Soomaaliyeed ay shaqeynayso hay-adda ugu sarreyso ee waddanka dhan ka wada shaqeyso farabras caaseer transcarbon stationada kulligoodna ay ahaayeen ku wada shaqeynayo walow markaas aviationku mainly shaqada uu qabanayo aysan ahayn diyaarada ay tahay meteorology-ga iyo beeraha uu wax badan ka qabanayo marka maanta meesha uu airline-ka iyo awoodiisa controlka diyaaradaha iyo hawada la maraayo uu ka yahay macnaha mugga weyn xilligaas qaybta meteorology-ga iyo awoodiisa aviation horta ay ku dhisnayd stationada noocaas ah maadaama department wasaaradda gaadiidka hoos yimaado uu yahay wasaaradda gaadiidka kii Muqdisho joogana way baabi'isay kii gobolada joogana way baabi'isay waayo miisaaniyadda aviation loogu talagalay qalabkiisa in lagu wado wasaaraddu ahamiyadda ma siinaynin marka waxaa soo xirmay dhammaan stationadii aviationka waddanka uu ku lahaa waxaa la isugu soo ururay Muqdisho ilaa markii dambe 1988 qayb ka mid ah aviationka qalabkiisii navigationkii wixiisa kulli markay burburan hawadiina hadiideeda ay halis badan ay gashay in la ka gooyo qayb ka mid ah waddankeena waddanka siisha loo gooyo markaas ayaa la baraarugay aviationka in dib loo abaabulay dhaqaalihiisa la suubiyo xilligaas marka waxaa noqonay waddanka ugu horreeyey
adduunyadu ayaata ay soo farageliso waayo ayaata waa hay-adda wakiilka international airline-ka hay-adda wakiilka ka ah wey marka waxay tiri anagu waxaana siisaa ka sugayna service ayaa naga iibisaa maadaama aad lacag un qaadataan inan servicekiina uu burburay waxaan u baahanaa si serviceka aan dib qalabkii baabaa ugu abuurno in dhaqaalaha aviation ee wadanka markaas dawladda ay dalacan jirtay ayay ka wareejisay gacanteeda waxay keentay barnaamij ugu horreeyey oo lagu bilaabay adduunyada waxaa noqonay EFM waxa la yihahda macnaa enhancement financial management lacagta Soomaaliya aviationkeeda uu lahaa waa dalka ugu horreeyey horta aayaadka xilligaas ee la wareegtay wadanka ugu horreeyay ayaa noqonay maanta waxaan u maleynayaa ilaa iyo 78 wadan ayay lacagtooda qabataa markii aayaadka lacagta qabatay alxamdulilaahi madaxweyne xilligaas joogay Siyaad Barre Allah u naxariistee waxa uu isu keenay khubaro aviation oo dibadda ka timaaday iyo khubarada Soomaaliya joogtay waxaa la diyaariyey nidaamka aviation wasaaradda gaadiidka looga hoos bixiyey sharcigiisana lagu diyaariyey halkaasna lagu siiyey macnaha sida aviation authority markaas la magacaabo laakiin ayaan daro wadanka ayaa badbaro 3 bilood kadib aanu soo gudbina marka Soomaaliya marka ay dawladdu duduntay waxaa la dadumay marka wax alla wixii imkaaniyaada ee aviation-ku uu lahaa airport-ku ugu horreeyey maintenance-ka meesha lagu sidiyey ama hangarradu dadka meesha u yaqaanaan lahaa oo aviation-ku macnaha uu garoonka uu lahaa oo la burburay waxaa la burburay dhammaan wax alla wixii nidaamyo iyo qaynuun iyo system jiray ayaa la burburay marka xilligiinusan ay timaaday shaqada aviation ku soo laabanay laakiin baahida jirto ayaa la fiiriyay waxay yiraahdo wadanka Soomaaliya aan kala qaybin hawadiisa laakiin maadaama ay joogtay markaasna dawladda Australia gacanta ku haysay adeegan iyo shaqaalihiisa kulli inay potential ka u leeyihiin ogaaday waxaa la go'aansaday UNISOM ay dan kale in Soomaaliya gudaha ka shaqeyso xagga hawada waxaa la qaaday xafiiska air navigation ka upper airspace ka bis ayaa waxaa shaqadiisa loo qaaday Nairobi marka anagu hawo lama qaadin waxa la qaaday waxa waaye shaqadii xafiiska qaybta upper airspace ka siin jirtay service siin jirtay ayaa muqdisho laga qaaday muqdisho shaqadii laga bixin jiray ayaa waxaa loo wareejiyay Nairobi mandate-ka lagu wareejinayana maadaama aysan dawladda joogin UNDP-da ku wareegay kaas ayaa permission ka bixisay marka shaqadii muqdisho laga qaban jiray ayaa waxaa loo raray xafiiska Nairobi ee ay leedahay halkaasay shaqadii ka bilaabatay marka in muddo ayaa waxaa laga shaqeynayay macnaha meeshaas laga shaqeynayay laakiin wax alla wixii qaab ahaa iyo aviation wuxuu lahaa oo kala dhow waa burbureen taariikhda marka aan rabno marka inaan soo degdegno waa taariikhda hadda aan ka hadlayo marka xafiiska Nairobi markii lagu wareejiyey ee kaayo awalka ugu horreeyay qalabka lagu bilaabay ee gobolada kulli la geeyey waa miisaaniyad ka timaaday UNITAF ayay ahayd oo ama qalabka Boorama lagu dhigay Barbara lagu dhigay Booso lagu dhigay ayaga ayaa bixiyay adeegina inuu orto ay ku hirgaleen waana sababta keenaysa inay arrin sirgasho waxay ahayd xilligii 88 marka aayaata lacagtaas ee la wareegtay overflight-ka maadaama ay qabanaysay oo la heli karo lacagta hay'ad qabata ay jirtay lacagta ayaa aayaata waxay ku shubtay ee kaayo shaqadina lagu bilaabay halkaas ayay marka horta aviation-ku ilaahay ka kabay ay ka uratay dhibna waa lahayd faa'iidana waa lahayd dhankaasi markaan ka hadalno waxaa muddo dawladihii imaanayay ilaa waxay abuurayeen wasaarad gaadiid wasaaraddaas gaadiidna waxaa keliya u ahaa shaksi hal roole oo wasiir kasta markuu tagay xilliga kumeel gaarka ahayd marka dhib badan lagama maraynin oo mas-uuliyadda ayagaa lahaa laakiin shiddada waxay timaaday xilligii dawladda rasmiga aan helnay marka aviationku xilligaas marka waxaa la soo diristay laba dhibaato oo aad u kala daran oo dhihi karo furuq iyo waraabow nimankii haayay airspace-ka waxa ay heleen tabar fara badan waxay heleen nadin fara badan markay dawladda timaada waxaa soo wajahday in aviationka xafiiska Nairobi ku shaqeynaya wadanka dib loogu soo celin karo inay hadda suurtagal tahay ogaadeen si aysan taas suurtagal u noqonin waxaa dhacday inay abuuraan xaalad nabadgelyo xumo oo xilligii Sheekh Shariif oo imaaday kasoo bilaabatay oo hawada saraa marka
dacwad fara badan ila qalabka lagu shaqeynayo duugu ahaa shaqaalaha shaqeynayo waa sistemyo fara badan dhexgeliyeen ay ugu talagaleen inay dacwooyinkan ku abuuraan. waxaa la suudiyey qaladaad fara badan oo xagga hawada oo isticmaaleen. marka waxaa naloo abuura kiis hawadaba nalakaga wareejiyo intaan muqdisho loo soo wareejin oo hawada loo kala qaybiyo dalka Seychelles iyo dalka India. marka exactly 2017 January shirka ka dhacay India ayaa lagu soo bandhigay oo la heli karo dokumentigiisa oo qeeldhaanta ugu horeysaba aan markaasi taqeeldaamin xilligaasna xilli kala guura. horta markay wax suganayaan aviationka nimankii abaekayo waxay ku soo beegaan xilli kala guura. marka xilligaas kala guurka ayay ku talagaleen in arrintaas dhacdo. qeeldhaanta la suubiyey ayaa waxaa dhacday in ilaahay amarkiisa ku noqoto in laba daran mid doona ay noqoto hawadii kulligeed fokaska dadka aqoonta lahaa ay saaraan in ekaayo bal hawada lagula dagaalamo la soo celiyo. marka dhinaca kale markaan ka fiirino xilligaas maxaa ka dhacay muqdisho waay hawadiilan way maqan tahay. aviationka Soomaaliya muqdisho wax u joogo lama arko, wax ka shaqeeya lama arko, experts ma joogo, shaqaale aviation ma joogo. waxaa joogta wasaaradda oo keliya oo meel cidlaa joogto. wasaaradda oo keliya marka ay joogto hadda wasaaradda focuskeeda waxa uu noqday qaabab kala duwan inay u kala baxaan ama loo kala qaaday ayay noqotay. wasaaraddii aviationki Nairobi ku jira dhaqaalihiisa ekaya qaado ayada waxba kuma hayso. waxay gacanta ku haysaa oo keliya waxaa waaye waa laba arrimood. waa garoonka muqdisho maran iyo aviationka waxyaabihii uu lahaa ee hanti ahaa dhulka taalay oo taalo oo keliya ay ka mid tahay kilometer 9 receiverki iyo meelihii kato aviationka uu lahaa qalabkiisa u yaalay keliya ayaa gacanta ku haray. laba dhibood baa marka wasaar u imaaday marka aviationka ekaayo oo doodaysa hawada inay kala qaybeyso ay rabto iyo wasaaradda gaadiidka oo ay ka imaanaysa aqoon darro wasiirada isxigo oo imaanayo oo ekaayo ay la falgelayaan. ekaayo marka waxay ku talagelaysaa wasiirka markuu u imaado wuxuu rabaa hawadii aan rabaa wuli hawadii aan rabaa maxaa haysataa waxba ma haysato. wasiirka marka waxay usoo bandhigayaan projecti qiimihiisa aada u sarreeyo malaayiin doolar ku kacayso. ekaayo waxay kusanaysaa wasiirka inuusan joogin muddo 6 bilood ka badan. saas marka Soomaaliya waxaa oga luntay lacag fara badan ilaa laga soo gaaro xilligii dawladda maanta ay joogto ay timaado taasoo maanta suurta gashay inay waqti dheer oo 4 sano hesho. dhinacna faa'iido ka yeelatay dhinacna khasaaro ka yeelatay. waayo wasaaradda gaadiidku aan kala qaadatan ekaayo iyo tan maxaa la wasaaradda gaadiidka. marka tan wasaaradda gaadiidka usoo laabanaya aan ku horumaro mar soo restashka tii ekaayo xilliga dawladdan ay timaaday. markii ay timaaday waxaan ku jirna marka halis qayla dhaamaa oo hawada Soomaaliya in la kala qaybiyo ay tahay ama in dal lagu wareejiyo ay tahay ama in contingency la saaro ay tahay oo waxay noo diyaariyaan waxa la dhaho flash. dadkii markaas wasiirka marka la magacaabay qayla dhaantii iyo buuqii aan hawada gelin ay arkeen. wasiirka waana soo approach gareeyey taloon la weydiiyey. waxaan ku dhahay niyow annagu waxaan noqonay irmaaneyaal. wasiir kastoo soo mara adeegan aviationka waxaan arkaynaa in qaybihi aviationka waddanka ay baaba'ayaan. adigana markii inta la yimaado ekaayo la tago waxay u baahan tahay in lala tago blueprint, in lala tago nidaamka ugu yar ee hawada Soomaaliya xafiiska Nairobi baaba'san looga soo rari karo oo muqdisho la keeni karo. markii muqdisho la keeno ayaa wax kasta oo wanaaga la qaban karaa aviationka kala dhisi karaan. wasiirku waxaan hor dhignay markuu noo tashtay dad ayaan kula talanay inuu soo geliyo systemka aviationka. wasiirkuna waa siyaasi, maariyona waa siyaasi. dar allah siiya rag ayaan soo gelinay systemkii oo labada maariyo ku-xigeen aan ka tilmaami karo. waxaa la diyaariyey marka wax lala shirtago oo ekaayo loola tago. ekaayo marka loola tagay wax ayagaa soo diyaarin jireen wax cad oo shaqada muqdisho ay ku wargeli karto ayaa loola tagay. dhinac kasta markay ka mareen faltanka ugu horreeyay aan bilownay waxaan ku guulaysanay in ay ku qancaan waxa aan la tagnay in lagu shaqayn karo. waxay ogolaadeen marka in arrinta lasoo wareejinayo iyo qalabkan aan la tagnay inay ogolaadaan in aan suubino. waxa ugu horreeyey
استراتيجية waxaan nimaanay 5 istiraatiijiyadood oo aan ku hirgelin karno ee kay inaan kala wareegi karno qalabka kow qalabkii yaalay garoonka muqdisho waxa uu ahaa qalab adviska loogu talagalay laakiin samaysahaan loogu talagalay training waxaan ku fikirnaa marka qalabkaas inaan ka dhigno qalab lagu shaqayn karo oo qalabka ugu horeeya aan ku furfurno aan ku soo dinno kow qalabkii waa rakibna marka oo dadkii shaqaalaha dadka adeegaas qabtay ilaahay waa ku guuleeyey qalabkii waa qabteen waa rakibeen xafiiska Nairobi istiraatiijiyada ee labaad ay ku fikirnaa waxay ahayd in xafiiska Nairobi laga soo raro muqdisho la keeno alxamdulilah ayadana dowladdan maadaama waqti dheer ay helnay ayadana ku guuleysanay waa la soo raray xafiiska waa la keenay markaan arrimaha suubinaynay ugu horreeyey qaladaadka faraha badan ee kale naga daba wareejinaysa waxay ahayd inay mar kastaba nalugoyso oo aysan waxaan si saxa oo dhab aysan ka ahayn waayo qalabkan waxaa suubinaysa shirkad talyaani ah shirkad talyaaniga markay qalab ku rakibayso dowladda ka horreysay waxaan kula ballanay in qalabkan la rakibayo ee laga gatay dadka rakibi lahaa ama suubin lahaa naloo diyaariyo oo naloo suubiyo dhibta marka meesha naga haysto waa wasaaradda gaadiidka waayo wasaaradda gaadiidka waxaan laga hadlayo farsamo aqoon fara badan uma laha nimankan qalabka rakibayay dadka aan ugu talagalnay in loo diro oo nalakugu tababaro hadda anagu gacanta kuma hayno dalasiga dowladda wasaaradana gacanta kuma hayno oo kulliya ku jirtaa dadka la tababar lahaa loo diri lahaa gacanteena waa ka baxday waxaa lagu diray dad kaleeto ayay direen oo macnaa iska baxay oo dadna lama tababaran tii marka waxay keentay qalabka markii la rakibayay in ay qalabkii rakibaadiisii ay u madax banaanaadaan shirkada talyaaniga ah rakibaadeeda walow muqdisho markay yimaadaan aqoon-yahanadeena ay ku faliyeen la samayntooda iyo rakibaadooda kulli aqoon fiican ay u leeyihiin ay la suubinayaan qalabka marka la rakibay waxay noo rakibeen qalabka marka in aan anagu waxaan ku fakaraynaa sidii aan hawada ku badbaadsan lahayn oo aan uga badbaadin lahayn in la kala qaybiyo ama waddan kalena laka siiyo waxaan ku guulaysanaa marka qalabka sida ugu habboon ee aan ugu yaraan ku shaqayn karno ee aan region kula tafani karno inaan gaarsiino ama ka sarraysiino qalabka rakibaadiisa marka horta awoodda noocaas ayaa raggii ilaahay u dhiibo soomaalidaha ayay gaarsiiyeen waxaa noogu xigay marka maadaama qalabka aan rakibnay ee shaqada ay bilaabatay financialka marka ee kaayo ay u shiba jirtay marka kayo ayaata u shiri jirtay kayo waxaan kala shaqeynaa marka dawladdu qaabka ay marka waxaa lagala shaqeeyay marka dawladdu inay la soo wareegto ay macnaha dawladdu macnaha ay macnaha qalabka ugu habboon ee lagu soo wareegayaan dawladda xilligeeda awooddeedana waa heshay waxaan horta aada ugu faraxsanahay inta aan qalabkaan rakibaynay dhibaatooyin fara badan hawada lagu wareejin karo ayaa wasaaradda noogu imaanaya laakiin waxaa ilaahay mahaddiisa oo aan credit siinayaa dawladda maanta ay joogto madaxweynaheeda leh iyo ra-iisul wasaarada leh oo cabashooyinka intooda badan si indirectii aan u gaarsiinanin wax badanna nagala qabtay marka xilligii financialka aan la soo wareegaynay gaar ahaan dawladda maxaa ujeeda ra-iisul wasaaraha wuxuu ku daray xubnihii financialka ahaa ayaa nala galay shirarka intooda badan ka qayb galayna si ay u arkaan bal dhibka meesha yaallo waxaa nala ka raba mas-uuliyadda dhaqaalahan waxa maanaa sidaysa u dhaceen xilligii dawladda horeeto in ay wasaaradda maaliyadda fahamto dhaqaaladan la soo wareegto baahida aviation ee adduunyada u wakiilatana dhaqaalahaan ay ayadu gacanta ku dhigto oo ay finance garayso oo ayada ay macnaha ay gacanteeda ku maamulato doodaha badan oo ka qayb galayno sida dhibaatooyinkii qalabka macnaha nalaku jarrabayo xataa waxba noo trainin oo nalaku suubinayo